بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Axmed Samo Maxamed kusoo dhawaada Samo Tech. Cashirkan waxaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo switch statement. Switch statement waa sida if oo kale oo waa interchangeable marka qaar. Marka program aad sameynayso waxa fiican marka qaarna aad isticmaasho switch statement marka qaarna if statement. hadba aad sida wax u rabto ayuu ku xiran yihiin laakiin waa interchangeable xilliyada qaar waa la isku bedelan karaa. Cashirkan waxa uga hadlayaa marka duu Ilaahay yiraahdo switch statement. Waxaan rabaa inaan example hore aan u galno inta aan sharaxaad dheeri aan ka bixin iyo sida uu u shaqeynayo inta aan sharxin. haddii example ka aragto waa fahmi doontaa qaabka uu u shaqeynayo. Waxaan rabaa marka qofka user-ka ah in number uu soo geliyo shaashada ka soo geliyo numberkaasna haddii uu yahay number 1 oo kale number 2 oo kale number 3 oo kale aan gelino annaga waxyaabo aan ugu talagalnay dhahno tusaale oo kale number 1 hadduu soo geliyo inaan lahaa qofka waad aqli badan tahay number 2 hadduu soo geliyana aan dhaho waa nasiib badan tahay number kale hadduu soo geliyana aan dhaho waa waxaad tahay qof jecel programming-ka hadduu numberada aan ugu talagalay number ahaan soo geliyana aan dhaho number khaldan ayaad soo gelisay. marka si user-ka aan u dhaho number soo geli marka hore waxaan leeyahay cout waxaan leeyahay marka soo geli number kadib waxaan leeyahay line sidoo kale waxaan rabaa marka numberka uu soo geliyo inaan ku keydiyo variable sida caadiga ah waxaan leeyahay marka number waa kan kadib waxaan leeyahay sin numberka la soo geliyo hadii uu keydisaa meesha kadib waxaan isticmaalayaa marka switch waxaan leeyahay switch kadib waxaan leeyahay marka numberkan test ayaa lagu sameyn doonaa wuxuu maraa marka wax la yiraahdo cases haddii tusaale ahaan oo kale case 1 oo noqdo waxaan leeyahay waad aqli badan tahay tusaale ahaan waxaan leeyahay marka maya case 1 hadduu noqdo waxaan leeyahay hoosan degaa waxaan leeyahay cout markan waad aqli badan tahay kadib waxaan leeyahay line wax kale jiro aan ka tagaa si hadhow aad u aragto qaladka meesha uu ka jiro waxaan leeyahay marka case 2 xataa muhiim ah in numberada aad isku xeejiso numberka aragtid ayaad ka dhigan kartaa tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay case 3 waxaan leeyahay marka tusaale ahaan cout waad nasiib badan tahay qofka saddexdood doorto waxaan leeyahay waad nasiib badan tahay waad nasiib badan tahay kadib waxaan leeyahay line waxaan leeyahay marka case 5 ama case 4 waxa rabto muhiim ah in numberada isku xijiso xataa waxay noqon karaan xarfo oo kale waxaan leeyahay marka cout حتى هاي قف جعل قف جعل programming كا هدي نمبر كا أو 1 سو جلي واي قف كا أو نمبر 3 سو جلي واي أو نمبر 4 سو جلي واي أو أنا نمبر أو كلا سو جلي وحارة إن عنده default إن عنده واحد سو جلي شيء نمبر خلطان حلا مركز cout kan waxaa la marka waxaad soo gelisay number qaldan kadib waxaan leeyahay line okay marka aan baroway waxaan leeyahay marka compile and run waxaan soo gelin number waxaan gelinaa tusaale ahaan oo kale number 1 wuxuu yidhaahdaa aqli badan tahay sidoo kale wuxuu yidhaahdaa waa nasiib badan tahay sidoo kale wuxuu yidhaahdaa waxaad tahay qof jecel programming wuxuu yidhaahdaa waxaad soo gelisay number khaldan okay kulli number isku xidhan oo ii soo wada tiri maxaa khaldan waxaan ka tagay break muhiim waa in break aad geliso mid kasta waxaad gelinaysaa break si qaybta kale uusan ugu gudbin
كان هدو دمي case 1 هدو نقد خلاص ويستاغ si case 1 هدي ودمي ويستاغ وينات بريك لهذا هذا تسالهان number 1 marka la عنده compile and run number 1 angeliya waa ka waad aqli badan tahay angeliya number 4 waxay dhahay waxaa tahay qof jecel programming hay angeliya numbers kan oo number 1 number 3 number 4 aan ahayn tusaalahaan oo kale 99 iska geli waxay leeyahay marka waxaad soo gelisay number khaldan switchka marka sidaa ayuu u shaqeeyaa waxaan rajeynaa cashirkan aad u fududaa inaad fahantay oo aad ka faa'iidaysatay cashirkan cashirka xiga inta ka gaari doono waxaan idin leeyahay fi amaan illah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته